balankii aan Uganda kuula galay ayaan ilaa maanta ku taaganahay waxa ka soo wareegatay 8 sano magaceeda waxa la yiraahdaa Ilhaan Faarax Aadan Ilhaan hadaad maqlaysid waxaan qisadan u soo duubay cid kale danka malihi adiga ayaan ku soo duubay fariintan adiga ayay kugu socotaa haddii aad qisadan aragto waa ku bariyaa ila soo xiriir qisadan waxay la soo wadaagay wiil ku nool Faransiiska wuxuu dhahay waxaan ku dhashay balcad waan ku soo barbaaray yaraantaydii kadib familkayga waxay u soo guureen magaalada Muqdisho halka waxaan ka bilaabay waxbarashadeydii waxa la geeyay iskool waxa jirtay iskoolka gabar xaqiiqdii ana aad mucaarad isugu ahayn oo aan garanaynin sababta aniga iyada mucaaradan isugu noqonay waxaan aad u xasuustaa inaan ardayda labadeena qaybna ida ay raacsanaayeen qaybna aniga ay raacsanaayeen gabadha waxaan u xifaaltamaynay si ana nolosheeda qof bidaadana u xifaaltamin maamulka iyo maaragtay macallimiinta mar walba waxay isku day jireen sida nagu heshiisiin lahaayeen laakiin aad baan u kala fogeen inkastoo aan garanaynin sababta aan gabadha u nabcanaa idana sababta ay nabcanayd laakiin faa'iido waxa ku jiray labadeena xifaaltanka naga dhaxeeyay waxaan noqonay iskoolka labada arday ugu dadaalka badan waayo anigu mar walba waxaan ku dadaalayay in gabadha ay iga kormarin waxba ii ahayd inay iga kormarto iyadana mar walba waxay ku dadaalaysay sidee imtixaan walba aniga iga sareyn lahayd nacaybkaan isku qabnay dhanka waxbarashada wuxuu ahaa mid faa'iido ah heer labadeena xifaaltanka naga dhaxeeyo waxa uu gaaray xaflad walba oo lagu qabanayo iskoolka in maamulka ay noo wacaan oo ay noogala tashtaan waayo ardaydii qaybna gabadha ay raacsanaayeen qaybna aniga ay raacsanaayeen qof walba aniga mucaarad igu ah wuxuu la jiray gabadha sidoo kale iyadana qof walba mucaarad aniga ayuu ila jiray faa'iidada waxbarashada wuxuu noo ahaa mid fiican waxaan garaway sababta aan labadeena u xifaaltami jirnay wuxuu waqtigu socdo waxa dhacay ugu dambeyn aabahay oo Faransiiska ku nool ayaa hooyo soo wacay wuxuu ku yiri waxaan rabaa caruurtii adiga inaa soo baxdaan Uganda dhimaataan leenkiini ayaan halkaas ka furi doonaa waan xasuustaa galab arbaca ah ayaan iskoolka tagay fasal ayaan u galaayay dhammaan ardaydii waa soo gacan qaaday laakiin iyada maya kadib maamulka ayaan u tagay macallimiinta ikane waan soo macsalaameynay maamulka iskoolka wuxuu yiri wiilkaygiyo dhammaan ardaydii inaa soo macsalaameysay adiga iyo gabadha waxa idinka dhaxeeyay xifaaltan oo anaga aan xalin weynay si walba hadaan isugu daynay inkastoo xifaaltankiina uu ahaa mid wanaagsan haddii si loo fiiriyo waayo ma ahayn laba arday oo isdagaali jiray iscayn jiray laakiin xifaaltankiina xaqiiq waxa ay inoo iskoolka qorxiyay laakiin hadaad bixaysid oo safar aad tahay waxaan ka codsanaa inaan labadiina idin heshiisiyo mayaan ku dhahay suuragal maaha inaan gabadha aniga la heshiiyo maamulkii iyadoo u wacay aniga barta aan istaagay oo ahayd lama heshiinayay si la mid ah ayay iyaduna tiri way isku dayeen macallimiinta iyo maamulka iskoolka in labadeena oo heshiis ah oo iscafinay inaan kala tagno laakiin aniguna waan diiday iyadana way diiday ugu dambeyntii anigu waan baxay Uganda naaday mar walba waxaan la soo xiriiri jiray ardayda xaqiiq waxa ah markaan baxay Uganda tagay inaan su'aalo badan isweydiin jiray waxaan bilaabay inaan ka fikiro gabadhii aan shalay la xifaaltami jiray aan u naxariisan jirin oo aan jeclaa qof walba iyada u dhow inaan dhankayga keeno waxaan isweydiin jiray adiga gabadhan maxaad isku haysateen sababta ay gabadhan ku nacday maxay ahayd adiguna maxaad u nabcaneed laakiin su'aashaas way iga jawaabi weysay naftayda mar walba waxaan bilaabay inaan gabadhi ka fikiro waxaan la xiriiraa ardaydii iskoolka waxaan weydiinayaa bal iga waran gabadhi xaaladeeda iyaka waxay u maleeyaan in xifaaltan darteeda aan ma aragtay u wacayo laakiin gabadhi waxay noqotay qofaan ka fikiro qofaan ka murgo xaqiiqdii waxay dhaheen xaqiiq markaan kuu sheegno gabadhi ma ahan gabadhi shalay way degtay iskoolkeeda imaataa waxeeday dhigataa way baxdaa hebel iyo hebel ayaa calankooda hadda babanaya sida idinka shalay aheedeen kuwaasa ah waxaan ku dhahay maxaa ku dhacay madada la dagaalay ma xanuunsan tahay waxay dhaheen maya laakiin sida adiga u baxday xaqiiq waxa ah gabadha inay aad u degtay awalba adiga la kula xifaaltamaysay adiga hadaad tagtay xifaaltankii way iska daysay hadalkaas aad buu ii danqaday mar walba waan ka fikiri jiray mar walba waan xasuusan jiray laakiin marna iguma soo dhicin inaa iyada la xiriiro oo raadiyo waxa dhacday waxa soo dhawaatay iid waxaan gadanaya dharka iida waxaan arkay gabadhii aan Muqdisho ugu soo tagay oo Uganda ila joogto oo meel wax ka gadanayso waan fiiriyay waa iyada waan u imid gabadhii shalay aan fasalka isla fadhiisanayn aan isla hadli jirin maanta waan u tagay waxaan ku dhahay sidee tahay si qalbi ah oo faraxsanaan iyo niyad ku jirto ayay tiri waan fiicanahay waxaan ku dhahay goorma inta imaatay waxay tiri 2 bilood ayaan joogaa
waan ka soo tagay Muqdisho layna Sweden ayaa noola xareenaya oo hooyaday ayaa xagga ku maqan aabba iyo caruurtii dhan ayaa ila joogo halkaasaan lambaradii ku kala qoranay mabanihin labadii qof shalay isdagaalsanaa ee cudownimada ka dhaxaysay labadeennaba manihin xaafadaydan tagay habeenkii qadkan ku sheekaysanay waxaan dhahay waxaan ku weydiinayaa nacaybkaadii qabtay maxay ahayd shalay waxay tiri mar walba aniguna su'aashaasaan isweydiiyaa ma aqaano sababtan kugu nabcaa ma aqaano sababta xifaalta dhan aan kula galay xaqiiqo waxay ahayd magacaaga xataa inaan jeclayn laakiin haddii runta kuu sheego markaad soo baxday aniga murug ay gashay xataa waxaan ka shallaayay markii maamulka uu ku dhahayay heshiiya maxaad u diiday laakiin adigu maxaad igu nabcanayd anigu iqaabtaas waan maray markaan halkaan imaaday wax badan aan isweydiiyey maxay gabadhaa kaa halaysay maxaad ula xifaaltamaysay maxay kaa suubisay laakiin su'aasha nafteeda way iga jawaabi weysay mar walba ardayda aan soo waco xaaladaadan wareysan jiray waxay ii sheegeen inaad degtay ee xifaaltankii iyo wixii aad wadi jirtay inaad joojisay haye tiri aad baan u niyad jabay markaad soo baxday iskoolka waxaan ka noqday qof imaada wixiisa dhigta oo baxo xataa xafladaha markii la qabanayo qabanqaabada iyo wixii dhan waan iska daayay anigu xataa ma aqaano gabadhii waan wada sheekaysanay mar walba waan sheekaysan jirnay aniga xaqiiqadii gabadhii jacayl baaxad weyn ayaa qalbigayga galay mar walba waxaan jeclaa inaan xiriirkayga u sheego ilaa aniga iyada waxaan ku wada hadlaynay si walaaltinimo mar walbaan isku dayo inaan u sheegto waan awoodi waayey waan wacaa waxaan leeyahay caawo inaan ku arkaan rabaa arrinaan rabaa inaan kuu sheego waayahay i leedahay habeenkii markaan u tago ma awoodo inaan wax u sheego maantoo dhan waxay leedahay waxaa ii sheegaysa ii sheeg waxaan ku dhahaa inaan ku arko ayaan rabay sanad ayaan isla joognay Uganda waan awoodi waayey wax jacayl inaan u sheegto maalin walba waxaan ku fikirayay inaan jacayl u sheegto ugu dambeyntii waxaan gaaray sanad kadib inaan go'aan qaatay ama ha i diido ama ha i yeesho inaan gabadhaan u sheego jacaylkaan u qabo waan wacay waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan kula kulmo caawa inaan ku arka ayaan rabaa arrinaan rabaa inaan kuu sheego waxay laahday ima arki kartid oo anaga iyo reerka dhan ayaa shoobin subsanayo maxaa dhacan ku dhahay waxay tiri anaga laankeena Sweden ayaa noo soo baxay oo isbuuca waan bixaynaa maxaa hore igu sheegi weysay wallaahi ma xasuusanin mar walba arrimaheeniisaan ugu sheekaysan jirnay ayaan iska iloobi jiray hadda waan baxayaa laankii noo hagaagay isbuucaanan joogayaa isbuuca 3 maalin ka dhiman marka waxaan ku dhahay waayahay waxaan rabaa intaadna bixin inaan is aragno labadeena waayahay ugu tiri habeen dambe is arkaynaa habeenkii aad baan u dhararaayay waxay qabatay murug waxaan lahay maxay tahay ciqaabtaan ee dhibaatadan ku haysato hal sano magaaladan kula joogtay maalin walba waxa dhahaysa bariyaan u sheega markaad go'aansatane safarana aadaya leedahay adigu waxa nafteyda iyo calaacal meesha ku qabto ugu dambeyn waxa la gaaray habeenkii waan u tagay waxaan ku dhahay habeeno badan ayaan ku balamiyay oo aan rabay inaan wax ku sheego sanad waxa igu qaadatay habeen walba inaan ku hor imaado caawa waxaan ku sheegi rabo aan ku sheego laakiin waan awoodi waayay mar walba waxaan dareemayay markaan ku hor istaago inaan waxba ku sheegi karin laakiin nasiibkayga ayaa sidaan u xun waayo adigoo baxayo oo safar ah ayaa haddana iga soo go'day inaan ku sheego waxay tiri maxay tahay ii sheeg waxaan ku dhahay xaqiiqdii markaan Muqdisho ka yimid aniga waxaan bilaabay walwal adiga xagaaga ah ma aqaanin walwalkaas laakiin markaad Uganda ila timaaday xaqiiq jacayl baaxad weyn ku qaaday sanadkan aad joogtay magaalada mar walba waxaan jeclaa inaan jacaylkaan ku qabo ku sheego laakiin waan awoodi waayay gabadhii inta markaan dhahay indhaheeda waxa ka soo daatay ilmo aad baan u naxay waxaan dhahay macadownimadii shalay ku qabtaa maxay la ilmeynaysaa maxaa ka soo bisay hadal xun ma dhahday ina adiga jeclaatid uma qalantid miya nafteyda ayaan intaa dhahay abaaye maxaa kugu dhacaan hiri waxay tiri ilintan waxa iga keenay waxay tahay sanadka aan joogay Uganda waxaan sugaayay goormo ku dhihi doonaa waan ku jeclahay goormo ku dhihi doonaa xiriir ma yeelanaa anigu waxaan ahay dumar laakiin waan kula qabaa markaad Muqdisho ka soo tagtay jacaylkii aan ku qaaday ayaan maaragtay ilaa maanta ku hayay laakiin mar walba waxaan isdhaayay goormo ku sheegan doonaa anigu waxaan ahay dumar waan awoodi waayay laakiin isaga ni raga oo ku sheeganayo
hadda markaan bixi rabo miyaad ii sheeganaysaa waxaan ku dhahay ma aqaano ano dhibaatada aniga adina haysato waxbaan iskay soo jiidaayo haddana waxbaan kala dheereenaayo waayo shalay markaan kursiga isla fadhinnay waan awoodi waaye jacayl inaan kuu sheego codownimo oo meel ka imaatay aan garanaynin ayaan kuu qabay markaad Uganda imaatane waan awoodi waaye jacaylkan kuu qabo inaan kuu sheego waan jeclaa waxa jacaylkayga hortaagan ma aqaano murugtaan waxa farxadda ii diidan waxay tiri maya halkaan waxaan ku wada gali doonaa balan anigu 2 maalin kadib waan baxayaa waxaan kuu ballan qaadayaa inta noloshayda ka dhiman inaan adiga ku sugi doono waxaan ballan ku wada galnay inaan labadeena isugno oo qof walba kan kale uu sugo aan xiriir kale aniga soo binin iidan ay xiriir kale soo binin waxaan wada qaadanay go'aan jacayl balan ayaan wada qaadanay waxa la gaaray xilligay bixisay gabadha may awoodin aabaheeda inay ku dhahdo waxa ay dhaweynayay wiilkan waxaan suubiyay habeenkii 1 saac ayaan garoonka aaday si aan iyada u arko ileen ma awoodo inaan u tago aabaheeda la socdo iidan aabaheeda ka baqaysay 4 saac habeenkii ayay imaadeen waan arkay anigoo arkaya ayay galeen qaybtii xaqiiq wuxuu ahaa habeenka habeen aad igu murugo badan waayo gabadhii aan jeclaa ee aan jacaylka u sheegan waayay markaan u sheegtayne way iga dhoofaysaa oo way iga tagaysaa habeenka wuxuu ii ahaa habeen muruga habeen aan seexan waayay habeen aan wehel ka dhiganayay labadeena wixina dhaxmaray way tagtay gabadhii tagidii ee tagtay ayaa igu wardambaysay waxa maanta ka soo wareegatay 8 sano waan sugayaa balankii aan qaaday ayaan wali ku taaganahay gabar walba xiriiri jacayl ii soo bandhigato ma awoodo inaan xiriirkeeda qabto waxaan isleeyahay haddii aad maanta gabar ka aqbasho beritoola iyada ay ku imaato waxaad qaaday balantiyan ku taaganahay laakiin iyada ma aqaano wixii ku dhacay mar walba aan soo galo Facebooka waxaan raadiyaa magaceeda 8 sano ayaan sugayaa xiriir kale ma soo binin mustaqbal ma dhisanin iidan u taaganahay iidan sugaa mar walba oo telefoon aan aqoonin uu isoo waco waxaan isdhahaa ama iida tahay ilaa maantay waxaan u taaganahay waa iida anigoona laynkeygi ayaa ii hagaagay oo waxaan aaday Faransiiska meel walba ayaan ka raadiyay gabadhii waan waayay waxaan ku noolahay maanta Faransiiska wax xiriir amaana soo binin waayo waxaan ku fikirayaa haddaad xiriir soo biso balantii aad ka baxday bari hadday imaatay maxaa u sheegaysaa ilaa maanta waxaan ku taaganahay 8 sano ka hor balankii aan ka qaaday meel aan ka raadinin ma leh mar walba Facebooka waxaan ku qoraa magaceeda laakiin wallaahi dhowr gabar ay isku magac yihiin ayaan raadiyay laakiin ugu dambeyntii way noqon waayeen 8 sano ayaan xiriir u soo binin ayaa mustaqbalkayga uu meel u taagan yahay waxaan sugayana waa iyada balankii aan Uganda kula galay ayaan ilaa maanta ku taaganahay waxa ka soo wareegatay 8 sano magaceeda waxa la yiraahdaa Ilhaan Faarax Aadan Ilhaan hadaad maqlaysid waxaan qisadan u soo duubay cid kale danka malihi adiga ayaan ku soo duubay fariintan adiga ayay kugu socotaa haddii aad qisadan aragto waa ku bariyaa ila soo xiriir ilaa maanta adaan ku sugayaa hataa haddii aad hooyo tahay oo xiriir ay yeelatay oo mustaqbal ay yeelatay waxaan ka codsanayaa inaad ila soo xiriirto intaas hadaa ii sheegto waxaan subsanayaa mustaqbal laakiin ilaa maanta adigan ku sugayaa waxaan ku dhahay walaalkay aad bay u xanuun badan tahay qisadaada xaqiiq waxa balan qaaday 8 sano ilaa maanta inaad ku taagan tahay wax mustaqbal ah soo bilaaday dhammaan dadka daawan doona muuqaalkan waxa idinka codsanayaa walaalkay 8 sano uu gabadhii u jecel yahay uu raadinayo inaad ma aragtay sheer gareysaan waxa laga yaabaa sheer gareen adiga aa sheer gareysay 8 sano gabadhii uu la'ayna sabab u noqotay inuu helo magaceeda waa Ilhaan Faarax Aadan Ilhaan Faarax waxaan ku leeyahay haddii aad muuqaalkan ku soo gaaro walaalkan uu ku dhibaataysan yahay 8 sano ayuu ku sugayaa wuxuu ku yiri haddii xataa xaas la qaba aan noqotay waxaan rabaa balankii aan kula galay inaan kugu simo si aan mustaqbal u yeesho haddii wali aa isugaysidne anigu waan ku raadinayay waxaan ka codsanayaa Ilhaan inaad walaalkaaga soo xiriiriso dhammaan asxaabta YouTube-kayga ku xiran muuqaalkan uu ka duwan yahay muuqaaladii hore waayo 8 sano ayuu walaalkayga raadinayaa jacaylkiisa meelna kuma sheego waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inuu noqdo muuqaalka ugu sheer gareynta badan si jacaylkan 8 sano isla ee dib u midoobaan anaga ilaahay ka suko sabab u noqon karna muuqaalkan sheer gareeya si wiilkan 8 sano jacaylkiisa uu raadinayo
uu helo qof walba oo yaqaano Ilhaan Faarax Aadan waxaan ka codsanayaa inuu ila soo xiriiro wiilkan 8 sano raadinaya jaceylkiisa aan sabab u noqonno inuu helo waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareysaan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saato una share gareyso asxaabtaada walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee nagu xiran heerkan maanta aan soo gaarnay Ilaahay ka suko sababteeda leh waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareysaan si aan u gaarno 100,000 oo subscribe oo wadadeedii aan ku jirno halka naga daawanaysaan waa Hiigsi anigu waa Subra Carab كامل عبد القادر أنه هايو مروه البوحة إذا الله هاي هقول استجعلك